kulanti wanaagsan saaxiibayaal jumca kariim meel walbaad naga daawanaysaan baa soo dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa warqadda ka soo baxday villa Soomaaliya ee la xidhiidha dagaalka dowladda Puntland ay kula jirto kooxaha argagixisada ee Daacish. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu isqariyo wuxuu daba mareeyo wuxuu iska indhatiro wuxuu dhagaha ka furaysto dagaalka kooxaha caalamiga argagixisada ay Puntland kula jirto ee ay kaliga ku tahayba fadeexad iyo ceebna uma yara haddana banaanku iskeenay war ayuu ka soo saaray warqadda lagu baahiyay page-ka villa Soomaaliya ee dhowr iyo 10 saac ee ugu dambeeyay baraha bulshada haysatay isla markaana siyaabaha kala duwan ay shacabku uga falceliyeen ayaan qodobkeena koobaad ku dul istaagi doonaa haddii alayno qodobkeena labaad madaxweyne xasan wuxuu ololeynayaa doorasho qof iyo cod Puntland markay gashay doorasho qof iyo cod ah oo aad ogsoonaydeen oo si amniya lagu soo doortay golihii deegaanka madaxweyne xasan goob fagaara ah ayaa waxa uu ka yiri 24 saac bay ku burburaysaa buu yiri Puntland haddaan laga joogin oo maxay u burburaysaa doorashada qof iyo codka ka daaya doorashada qof iyo codka ka daaya waayahay Puntland doorasho qof iyo cod 24 saac buu xasan yiri way ku burburaysaa haddana wuxuu leeyahay doorasho qof iyo cod dalka ka dhacaysa maxaa qarsoon maxaa isbedelay say wax yihiin iyadana waan iftiimin doonaa arrimaha siyaasadda ee halkaas ku duugan ayaan shaaca ka qaadi doonaa hadduu alayno waxaan dhinaca kale dul istaagi doonaa hadalka wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland wuxuu yiri gooja cadda waan ogsoonayn oo gooja cadda tuuna waan ogsoonayn oo waxaan ogsoonayn dagaaladii wajigii koobaad ee argagixisadana waan ogsoonayn gooja cadda tiriiga waa buuraha calmiskaad buu yiri buuraha calmiskaad foorkana waynu isla garanaynaa buu yiri haddaba waynu isla garanaynaa ayaa siyaabo kala duwan loo qaada dhigayaa go-aankaasi adag ee wasiirku ku dhawaaqayna iyadana mid iyo labo ayaan ka dul istaagaynaa waxaan dhanka kaleeto iyadana rabaa inaan idinla wadaago baaq uu diray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uuna u diray shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland dal iyo dibadba hadaba baaqaasi muxuu salka ku hayaa iyadana waan iftiimin doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara fogaya meel dheer ka tuura sida caadada baynu ahayd markuu muuqaalku soo gaaro like waxba ka dhici maya dharkasi insha Allah ta'ala waxaan kaga hadlaynaa gobonimada guulaha la gaaray iyo dagaalada argagixisada lagu baxsanayo aynu ku bilownee villa Soomaaliya warqad baa lagu baahiyay shalayto oo la xiriidha dagaalka Puntland ay kula jirto kooxaha argagixisada ee Daacish warqadda la baahiyay oo lagu tilmaamay inay madaxweynaha ay ka socoto ma uusan hadline qoraal ahaan laga dhigay nin agaasimo meesha ka ana uu ku saxiixan yahay hoostiisa sida ka muuqata ayaa waxaa lagu yiri Muqdisho February 2025 madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sii xoojiyay baaqa golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waa golaha shacabka ee ku aadan howlgalka ka dhanka ah argagixisada Daacish ee ku dhuumalaysanaysa buuraha calmiskaad ee gobolka Bari madaxweynaha ayaa bogaadiyay guulaha taariikhiga ah ee ay soo hooyeen ciidanka iyo shacabka dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha ayaa faray xukuumadda in ay dardar geliso hirgelinta go'aanka taageerada geesiyaasha Soomaaliyeed ee u istaagay xoreynta deegaanada ay argagixisada Daacish kaga sugan yihiin buuraleyda gobolka Bari ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa adkeeyay in dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada caalamiga iyadoo la xoojinayo awoodda ciidan korna loo qaadayo daryeelka caafimaadka ee halyeeyada ku dhaawacmay xoreynta deegaanada lagu baxsanayo argagixisada Daacish waa madaxweyne xasan bay ka socotaa baa leeydi wuxuu xasan gabado wuxuu xasan jeedsado wuxuu xasan waxa weeye ka hadli waayo fadeexad iyo ceebna uma yara
warqadaasuna horta soo saaray waan taageersanahay buu yidhi dagaalka daacish ee puntland ay ku jirto waan garab istaagaynaa buu yidhi ciidamada waan daryeelkooda kuwa dhaawacmay waxaan xoojinaynaa buu yidhi baaqi ka soo baxay golaha shacabka ee la xidhiidhay dagaalka argagixisa la dagaalanka argagixisada ayaan xoojinaynaa buu yidhi xasan haddaba maxaa ka keenay ma isagaa soo go-aansaday mise waa laga keensaday waa laga keenay international community-ga waxa weeye yaa canaantay qaramada midoobey baa canaanatay ummadda soomaaliyeed oo dhan baa ceebaysay oo waxa weye ceebtiisii banaanka keentay oo micnaha waxa weeye banaanka la keenay looma ceeb qarinin baarlamaankii oo wadaa la arkay wixii uu lahaa waan ka shaqaynayna waan la dagaalaynaa muddada badan ummadda soomaliyeed uu ka dhaadhicinay oo waxaa la arkay baashi ay iska qabyaaladowday banaanku iskeenay marka wuxuu yidhi diyaar baan nahay buu yidhi haddaba maxaa laga filan karaa marka waxbaan taageeraynaa buu yidhi maxaa laga filan karaa dee xasan wax weyn laga filan maayo haddii uu ka joojiyo un hagardaamada iyo hay-adaha caalami wadamada waaweyn ee taageeri lahaa puntland hagardaameyntooda iyo dhegwaxowsheegooda hadduu ka joojiyo puntland iyadaa isku filan iyagiyo saaxiibadooda iyadoo kaashanaysa iyadaa isku filan laakiin intaa ma ka dayn karaa intaa un xasan ma ka dayn karaa weeye arrimaha la isweydiinayo taasi waa midaasoo waa warqada ka soo baxday villa soomaaliya xaggan kalena xamsi iyo kooxdiisana de waa ka hadleen maalmahan marka geed lagu gabado la waa meel lagu gabado waa la waayey mar haddii la waayey marka meel lagu gabado in banaanka la iskeenay noqotay oo waxa weeye marka hore ilaan waa la isqarinaye aan la isqarinin oo banaanka la iskeeno ceebayn dhaleecayn cambaarayn ayaana hawada looga qaaday bishii ugu dambeysay hadda howlgalladu ay socdeen howlgalladu si habsami leh ayay u socdaan puntland guulo waaweyn bay gaadhay howlgalkuna ma istaagayo meel fiican buuna hadda marayaa halyeyadii ku shahiidayna janatulfardows allaha geeyo kuwa ku dhaawacmayna ilaahay waxaan uga baryaynaa caafimaad ehelada iyo qaraabadana sabir iyo iimaan baan leenahay reer puntland oo dhanna waxaan leenahay guulaysta horay u socda ayaan leenahay dhanka kale wasiirka warfaafinta waxa uu yidhi waxaan ogsoonayn buu yidhi goojo caddawan aragnay buu yidhi goojo caddawan waana ku guulaysanay goojo caddatuuna waa buuraha calmiskaad goojo cadda tiriina waa buuraha calmadow goojo cadda foorna hee waa isla garanaynaa ayuu yidhi xaggay noqon doontaa goojo cadde foor goojo cadda one waa 25 Augusto oo waxaan ogsoonayn SSC iyo reer Puntland oo iskaashanaya jabkii ay u geysteen maleeshiyaadkii SNM ee ummadda dhibaatada kaga ku hayay gobolka Sool degan waa ka ogsoonaydeen oo kun maxaabiis ku dhawaad baa hal maalin lagu qabtay dhowr kuna madaxa laga gooyay 300 ka badan oo technical hal maalin baa laga xisaabiyay waa maleeshiyaadkii SNM ee kibirka badnaa ee kibrey weeye halkaas la dhigay kibirkoodii goojo cadda tuuna dee waa buuraha calmiskaado la arag 200 oo ajaanib ah ayaa kurka laga gooyay hubkoodii iyo saanadoodina waa la qaaday waxaad aragtay baa daacish ku dhacay ee adduunkii oo dhan yaabaya goojo cadda tiriina waa buuraha calmadow oo weli howlgalkoodu dhinacaasa laga soo afmeero gooyaha laga taagan yahay waana lagu soo siqayaa markii kuwan calmiskaad laga baxo xaggana waa lagaga soo dhawadaa xaggana waa lagaga silisayaa iyadana maalin dhow waa laga taqaluusi doonaa goojo cadde foor muxuu yahay goojo cadde foor anaa idin sheegaya goojo cadde foor waa siyaasadda Soomaaliya waa doorashada dhici doonta iyo ka taqaluusida Xasan Sheekh Maxamuud iyo in system ummadda Soomaaliyeed masiirkooda ka turjumi kara la helo iyo qof hogaamin karo bulshada isku hayn kara oo siyaasadiisu ay ka duuleyso hore u socod iyo horumar dalkan Soomaaliya inuu gaadho bulshada Soomaaliyeedna la mideeyo xasan saasi maaha taasi lagama sugayo xasan waa hooyo tirso wixiisu waa tirso wey marka tirso dal lagu hogaamin karo tirso dal ma lagu hogaamin karo mid labaad doorashadii Puntland markay dhacaysay xasan wuxuu yiri 24 saac waxa 24 sano dhisayseen reer Puntland 24 saac bay ku burburaysaa buu dagaal ma soconin doorasho qof iyo cod dhacday shacabku iyaga soo codeeyay golaha deegaanka cod shacab bay ku soo baxeen maxaa burburinaya wuxuu burburinaya aniga ma rabi weeye doorasho qof iyo cod inay Puntland ka qabsoonto aniga ma rabi buu leeyahay xasan totally ba ma rabo weeye
haddaan marka aan u reebin waa burburinaya wey marka burburka marka isaga ka qayb qaadanaya isaga naftigiisa xasana ayaa burburkaasi ka qayb qaadanaya waa in bulshadu marka ay fahamto hub buu kusoo daadguraynayay reer puntland way fadhiisteen waxaa la yidhi waryaa waa layna soo galay he dhinacyada laynaga soo galee maxaa dan inoo ah ummadeenna maxaa dan u ah ummadeenna waxaa dan u ah he aan heshiino waa la heshiiyey reer puntland kuna wax markay isku qaqabsadaan waa dad aad waxa weye ay u fududahay inay heshiiyaan waa dad ilbaxa weeye macnaha ilbax weeye marka xabad marba dhulkooda marna kama dhacdo oo siyaasadeed xabad siyaasadeed maya reer puntland aad ba arrimaha uga fogay way isku balxoofteeyaan oo xoogaa waa dad waxa weeye hanjabaad badan oo xoogaa balxoofto badan oo balxoofto waa garanaysaa waan u malaynaya qofku waxa weeye serious baad u qaadanaysa haddaadan garanaynin qofka reer magaalkaaman waxaa lagu yaqaanaa marka kadibna waaba la heshiiyo waa looga baxayba si wixii u watay iyo nimankii uu soo dirsaday lacagii waa laga qaatay waana looga booday isagii marka sidaas ahay ee puntland ka diiday doorasho qof iyo cod hadda wuxuu leeyahay doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacaya puntland gacan kuma hayo jubbaland gacan kuma hayo koonfur galbeed waa lileecaysaa yaa xaggee lagu qabanaya doorasho qof iyo cod somaliland waa sii maqnayd xaggee doorasho qof iyo coda lagu qabanaya meel doorasho qof iyo coda lagu qabto gobolka banaadir oo weliba amnigiisa aan la sugi karin amniga gobolka banaadir ma sugi karo xasan ciidanka ka marqaata ma sugi karaan ciidanka marka gobolka banaadir waxaan ka wadaa amniga gobolka banaadir ee sidaad aragtaya ay doorasho qof iyo coda xataa laguma qaban karo xaggee lagu qabanaya marka doorasho qof iyo coda maanta gobolka banaadir qofka jooga haddaad tirahda xaafadeed degan tahay maxaa kaa galay buu kudhihi ma sheegayo kudhihi xaafadan degana waa cabsida iyo khalkhalka magaalada ka jira marka xaggee doorasho qof iyo coda marka lagu qabanaya ma muuqato iyadana doorasho qof iyo coda waa arrin iska mala awaal ah oo aan run ahaantii ahayn arrin markaasi saxa bulshadana arrin kala geysay weeyo waa arrin loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed ay ka tasho ummadda soomaaliyeed waa isku dan ummadda soomaaliyeed waa isku dan ma kala maaranto maanta kala googo iyo maamul goboleed kolba dhinac u go-o oo ninba dhinac u dhaqaaqo dani ummadda soomaaliyeed uma jirto ilaahayow hana tusin waxay dani inoogu jirtaa inagoo isku duuban inaan qofka siyaasadda xun aan iska dhex qabanno qof wanaagsan aan raadino oo waa dal yar baan nahay intaan system saxa oo doorasho qof iyo codo amniga aan ka gaadhayno aynu waxa weeye kolba jaranjeero laysla ogol yahay aynu ka gudubnaa loo baahan yahay taasina waa midda ugu dambeyn madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo shalayto ka hadleeyey goob ay markaasi uu ku booqday andhahan isbitaalka uu ku booqday dhaawacyadii halyeeyadii kusoo dhaawacmay buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari dagaalka cidhitirka kooxda khawaarijta ayaa baaq u diray qurbajoogta reer puntland wuxuu yidhi qurbajoogta reer puntland ha joojiyaan buu yidhi shirarka isdaba joogga ee ay dalka dibaddiisa ka wadaan arrin deg degaan ku jirnaaye xaqiiqada horay ha u galaan oo ha abaaraan buu yidhi micnaheedu maxay tahay qurbajoogtu wax walbaa looga baahan yahay daawooyin inay soo diraan baa looga baahanyay dhaawacyada inay qaadaan baa looga baahanyay inay ka qayb qaataan baa looga baahan yahay dhaqaale inay soo diraan baa looga baahan yahay gubaabaa looga baahan yahay wax walbaa looga baahan yahay ninna dhulkiisa kama maarmo ninna dowladdiisu kama maaranto waxaa marka la rabaa baaqaasi in la qaato shirarka isdaba joogga ee la wado ee laga yaabo hoolkii inuu 5 kun lagu bixiyey lagu shirayo waxba dan umaha shantaas wiil dhaawaca ayay waxa weeye daaweynaysaa oo daawooyinkiisa ay ku filaanaysaa marka waxaan leenahay baaqaasi madaxweynaha sidaas lagu qaato waynu eegi doonaa howlgalku waa socdaa wixii kasoo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa anigoo santaaga ayaa inala socodsiin doona mar kale waxayna leeyahay jumco wanaagsan meel walbood naga daawanayso